إثيوبيا waxay Ethiopia ku ahaan kartaa oo kaliya waa federalismka iyo dastuurka haddii uu dastuurka meesha ka baxo dastuur cusub ma qaadanayno Ethiopia kalena ma qaadanayno waxa aan ogsoonahay shalay dhibaatadii uu lahaa dhergigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dhergiga ahaa ee dogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay marka anagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumaddiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhergi la yidhaaho ama wax u egtoona inuuna soo noqon karin ayadoo waayadii dambe ay ku jirtay qorshe markaasi Abiy Ahmed uu maagan yahay isla markaana ah nidaam markaasi ka duwan nidaamkii Ethiopia ay ku soo shaqeynaysay dhowr iyo 30 sano la soo dhaafay kaasi oo ahaa nidaamka federaalka ayaa haatan waxa soo baxayo in loo guuriyo nidaam isteeda isla markaana dhamaanba la burburinayo xuduudaha dowladdeegaanadu ay leeyihiin iyo waliba sidoo kale awoodda ay haystaan madaxda dowladdeegaanada qaar waxa dhinaca kale si weyn loo hadalhayaa Ethiopia waxay ku dambeyn doontaa hadii la burburiyo nidaamka federaalka madaxweynihii hore dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo dhawaan xabsiga laga sidaayay ayaa si cad ugu nuuxnuuxsaday Ethiopia oo kaliya inay ku jiri karto nidaamka markaasi federaalka hadii laga leexdo qodobka 39aadna Ethiopia ay noqon doonto mid gabi ahaanba ku dambaysta burbur iyo waliba dagaalo ka dhaqarxa Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa si adag markaasi uga hadlay qodobka markaasi tilmaamaya in Ethiopia ay u guureyso nidaamka isteedka sidoo kalena la bedelayo dastuurka federaalka isku haya wadankaasi Ethiopia waxa arintaasi uga digay dhamaanba bulshada Soomaaliyeed inay gabi ahaanba arintaasi ogolaadaan gaar ahaan dowladda haatan talada haysa ee Mustafa Maxamed Cumar ayuu uga digay inay qodobkaasi saxeexaan ayadoo waliba aan ognahay in ciidamo fara badan la soo dhoobay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida kuwaasi oo dhibaatooyin fara badan ku hayn jiray tan iyo intii uu dhacay isbedelka dabcan 30 iyo dhowr sano Ethiopia waxay ahayd nidaamka isteedka sidoo kalena waxay si toos u hoostagi jirtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ma jiri jirin xafiis hoose oo Soomaalidu ay leedahay ama qowmiyadaha kale ay leeyihiin sida haatan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo kale waana arinta markaasi Ethiopia ay bedeshay isla markaana ay u guurtay nidaamka federaalka kadib markii cabashooyin fara badan iyo dagaallo dhaxdeeda ay ka bixi weyday nidaamka dhergiga oo la soo celiyay waxa uu sababi karaa in qowmiyaduhu ay isdagaalaan qabiil la isku qabsado sidoo kalena Ethiopia awoodeedu ay daciifta ayuu ku soo koobay hadalkiisa xogtan ayaa tilmaamaysa daawadayaal in gabi ahaanba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida ay haatan u sacabatumayaan gabi ahaanba in loo guuro nidaamka isteedka kaasi oo awood siinaya dad gaar dhinaca kale waxa arintan markaasi si weyn u horkacayo madaxa amaandhe gudoomiye ku-xigeenka xisbiga PP oo asagu sheegay in gabi ahaanba ay qabiilkiisa iyo waliba sidoo kale Soomaaliduba ay dan ugu jirto nidaamka isteedka waxa uu sheegay in awoodda dowladda deegaanka Soomaalida ay cid gaar ah gacanta ku haysto isla markaana iyagu ay manfac iyo waliba sidoo kale wax muuqashaaba ay ku haysanin nidaamka ka jira dowladda deegaanka Soomaalida dhinaca kale waxa arinta taageersan wasiirka arrimaha wasiirka maaliyadda Ahmed Shide oo asaga laftirkiisa ku doodayo in la burburiyo nidaamka federaalka si kastaba Soomaalida ayaad moodaa in ay iyagu haatan ku kala jaban yihiin nidaamka federaalka ee Abiy Ahmed uu dhawaan soo jeediyay waxa jirta qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan ee xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar oo ayagu si hordhaca u sheegay inaysan ogolaalaynin nidaamka federaalka gaar ahaan golaha kabineetka ayaa si cad u sheegay inaysan kollaba ansixinaynin nidaamka federaalka waxay sheegeen hadii federaalka laga guuro inuu caqabad ku noqon doono bulshada Soomaaliyeed iyo xuduudeeda dabcan waxa waayadii dambe iyadana soo baxaysay in la burburiyay dhamaanba ciidamadii liyuuga ee gaarka ah dowladdeegaanadu ay lahaayeen si gaar ah dowladdeegaanka Soomaalida ayaa waayay ciidamadii ay ku dirsadeen shacabka kuwaasi oo difaacayay xuduudaha iyo waliba sidoo kale goobaha cadawgu oo markaasi ka soo dhuumaleysanayo ama uu ka dhibaateynayo shacabka dowladda deegaanka Soomaalida si gaar ah waxa magaalooyinka Goday iyo waliba galbeedka City loo geeyay ciidamo military kuwaasi oo ilaalinaya ayaa la sheegay amniga iyo waliba xasiloonida magaalooyinkaasi iyo waliba goobaha markaasi loo malaynayo inay ururka Al-Shabaab iyo waliba ururada kale argixisada ay ka soo gudbi karaan xogtan ayaa tilmaamaysa in gabi ahaanba madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta markaasi mucaaradka intooda badan ay shir degdeg ah oo ku yeesheen magaalada Addis Ababa ay ka soo saareen baaqan dabcan iyadoo waliba madaxweyne Cagjar arintaasi ay ku adkaan doonto inuu yeelo ayaa haddana waxa ay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqeen inay ka hortagaan isla markaana ay dhigaan mudaharaadyo lagu badbaadinayo dhamaanba khayraadka dhulka dowladda deegaanka Soomaalida hadii isteed loo guuro waxa dhici karo in la waayo saamiga aanu ku yeelanayno shidaalka ka soo baxaya dhulka dowladda deegaanka Soomaalida macdanta dhulka laga qodayo oo ayada laftirkeeda ay qayb ka noqon doonaan qowmiyadaha kale ee dalka Ethiopia ayuu sheegay
madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka soomaalida. balaatanna aan isla daawano asaga oo markaasi ka hadlaya xaaladda Ethiopia ay ku dambeyn karto haddii gebi ahaanba la waayo nidaamka federaalka. waxaa aan ogsoonahay shalay dhibaatadii uu lahaa dhergigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dhergiga ahaa ee ogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay oo raba inay waxa weeyaan xukunkii ay dowladda federaalka carqaladeeyaan oo mar labaad ay Ethiopia dib ugu soo noqdaan iyaga oo sheeganaya ururo kale iyaga oo siyaabo kale u socda. marka waxaan leenahay haddaan nahay shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddiisa mudaharaadada laga sameeyay Gondar iyo Baxardar iyo meelo kamid ah Oromia waxaan leenahay waa sharci darro waxay u mudaharaadayaan waa dembi waana waxa weeye sidii mar labaad dhergigu ugu soo noqon lahaa. marka annagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumaddiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhergi la yidhaaho ama wax u egtoona inuuna soo noqon karin. Ethiopia waxay Ethiopia ku ahaan kartaa oo kaliya waa federalismka iyo dastuurka. haddii uu dastuurka meesha ka baxo dastuur cusub ma qaadanayno Ethiopia kalena ma qaadanayno. haddii dastuurka meesha laga saaro gaar ahaan qodobka 39aad oo waxa Ethiopia isku aaminaysaa haddii saas u dhacdo waxay noqonaysaa in deegaanka Soomaalida Ethiopia uu dagaal kala hortagi wixii dhergi iyo arrimihiisa iyo Gimboosawad male. Ethiopia ka dambeyn karta dastuurkana ma jirto. haddii dastuurkaas waxa weeyaan la farageliyo waxay ka dhigan tahay Ethiopianidii waa lagu tuntay waayo shalay iyada oo waxa weeyaan burbur qarka u saaran ayuu dastuurku yimid oo dib isugu celiyay. maanta haddii waxa weeyaan Gondar iyo Baxardar looga mudaharaadayo sidii dhergiga uu waddanka u qabsan lahaa waxaan cadeynaynaa inaan ka soo horjeedno mana aqbalayno. Soomaaliduna halka ay taagan tahay inay hore uga socoto mooye dib uga soo noqon mayso. tan iyo isbedelkii ka dhacay waddanka Ethiopia ee uu ku soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxaa soo baxayay in markaasi daandaansi ballaaran uu hayo dhammaanba xuduudaha dowladda deegaanka Soomaalidu ay la wadaagto bulshooyinka kale ee dalka Ethiopia ayadoo loo jeedo khayraadka iyo waliba sidoo kale shidaalka laga helay dhulka dowladda deegaanka Soomaalida. bulsho badan oo Soomaaliyeed arintaasi kama dhadhacsana laakiin waxaa la arki doonaa markii gebi ahaanba loo guuro nidaamka federaalka ayaa gebi ahaanba awoodda iyo waliba khayraadkan uu gacanta u geli doona qoomiyadaha naga tirada badan ee markaasi aanu la wadaagno xuduuda sida maamulka Axmaarada iyo waliba sidoo kale Oromada. sida uu sheegay madaxweynihii hore dowladda deegaanka Soomaalida waxa uu halkan ka cadeeyay inay jiraan mudaharaadyo tilmaamayay ama markaasi loogu sacabatumayay nidaamka isneedka. dabcan arintan ayuuna ku tilmaamay mid markaasi lagu soo celinayo nidaamkii gumaystaha ee laga soo gudbay dhowr iyo 30 sano ka hor. Ethiopia ayaa xilligaasi garwaaqsatay in nidaamka federaalka kelita uu wadi karo ama isku wadi karo bulshooyinka kala duwan ee kala diinta kala dhaqanka kala luuqadaha ee markaasi ku dhaqan gudaha waddankaasi Ethiopia. in ka badan dhowr iyo 10 qowmiyadood ayaa markaasi ka jirta gudaha waddankaasi Ethiopia kuwaasi oon lahayn hal dhaqan oo isku eg iyo waliba hal luuqad oo markaasi ay ku wada hadlaan marka laga tago luuqadda Axmaariga oo midayso guud ahaanba waddankaasi Ethiopia. arintan ayaa markaasi tilmaamaysa haddii Ethiopia ay ka guurto nidaamka federaalka in ay dhici doonto dagaalo jabhado iyo waliba sidoo kale weeraro ay qaadi karaan xubnaha markaasi ka aragtida duwan nidaamka markaasi waddanka lagu maamulay. Abiy Ahmed ayaa isku diyaarinaya 32 sano oo talada u hayo si la mid ah intii uu hayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ethiopia Mala Zenawi oo asagu hayay xukunka in ka badan 32 sano. waxayna arintan tilmaamaysaa haddii Abiy Ahmed gebi ahaanba uusan burburin awoodda Oromada si gaara ciidamada liyuga ee deegaanadaasi ka howlgala sidoo kale tana uu heshiis la galo ururka Oola waxay u saalaysaa inuu awoodda sii hayo in ka badan 12 sano ilaa 30 sano. waana arinta markaasi madaxweynayaasha dowlad deegaanada qaar ay ugu sacabtumayaan in Abiy Ahmed xukunkaasi sii hayo sifa iyaga loo gaarsiiyo meelaha ugu sareyso sidoo kalena loo baabiyo shacabka. dhinaca kale waxaa gebi ahaanba istaagay mashaariicii ka socday dhulka dowladda deegaanka Soomaalida si gaar ah wadada isku xidho ee magaalada Goday iyo waliba sidoo kale Afdheer. waana arin markaasi daba joogta khilaafyada hareeyay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo waliba si gaar ah xukuumadda Abiy Ahmed oo ayagu joojiyay dhammaanba mashaariicii dowladda federaalku ay ka waday gudaha ee deegaanada dowladda deegaanka Soomaalida.
waxaa dhinaca kaleeto la burburiyey nidaamkii ciidamada difaaca sida ciidamada liyowga ee dowladdeegaanka soomaalida iyagoo hubkoodina loo gacagelinayo qoomiyadda oramada sida uu sheegay mid ka mid ah madaxda ugu sarreyso ciidamada liyowga oo ayagu haatan noqday ciidanka booliska ee dowladda deegaanka soomaalida waxa uu si cad u sheegay in hubkii uun gacan ku jirin sidoo kalena loo gacangeliyey qoomiyadda oramada islamarkaana ay haatan isku diyaarinayaan dagaallo iyo weeraro ay kusoo qaadaan shacabka degan xuduudaha arrintan dawadayaal ayaa tilmaamayso in gebi ahaanba dowladda deegaanka soomaalida ay ka jirto xaalad adag iyadoo maalintii ciidina dhibaatadii ka dhacday magaalada goday ay ahayd mid tusaale cad u ah joogitaanka ciidanka militariga oo ayagu la sheegay inay u badan yihiin qoomiyadda oramada islamarkaana dhibaatooyin ay si hordhaca oo geysteen gudaha dowladda deegaanka soomaalida dawadayaal waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe ee wararkeena ayaad ku maal doontaan iyadoo weliba aanu eegayno xogihii ugu dambeeyey iyo weliba sidoo kaleeto falcelinta xukuumadda mustafa maxamed cumar ay ka bixin doonto hadalka kasoo yeedhay madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka soomaalida uga hadlayo sida lagu badbaadin lahaa dhulka dowladda deegaanka soomaalida iyo baaqyada uu jeediyey bulshada dowladda deegaanka soomaalida oo iyagu uu markaasi mustafa u arko inuuba taageerada ugu badan haysto cabdi maxamuud cumar lagana cabsi qabo haddii cabdi maxamuud cumar uu imaado magaalada jigjiga ama dhulka dowladda deegaanka soomaalida ay adkaan doonto in markaasi ciidamadii liyowga ay markaasi hubka dhigistan ay ku qancaan islamarkaana lagaba cabsi qabo qaar ka mid ah in ciidamadaasi ayba aadaan dhanka cabdi maxamuud cumar islamarkaana uu dagaal halkaasi ku dhex maro cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore iyo weliba madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe wararkeena ayaad ku maqli doontaan tan iyo intaan barnaamijkan waxay ku kulmi doona waxay ka taasidaasi amaanaan